kenya waxay tiri go'aanka ka soo baxa maxkamadda adduunka uu hoggaansami mayno waxaana halkaa iga baxay markaan calaacalkeeda arkay gardaradii baddeenna ay ku rabtay inaysan ku helayn go'aan cadaalad ahna uu ka soo bixi doono maxkamadda markaa haddii maxkamaddu baddeenna noo xukunto maxay naga qaadi kartaa aryaadaha baddeennan ay murunka geliyeen minay iyo murunka ka baxda naloo xukumo kenya iyo wax lamiduhu sooma ag roogsa karaane minay isku soo dayaan se wallee dhici mayso daanyeerkii nin daabana weyn ka daaqa beerta waa dabal daanyeerkii nin daabana weyn ka daaqa beerta waa dabal war madaxda soomaalida waxaad u qabtaa go'aanka maxkamadda inay kaambeyn ka dhigan rabaan oo nin kastaa ku faani doono sababtoo ah guushu waa dad badan tahay guuldarraduna way dad yar tahay laakiin waxaa xaqiiqo ah dacwadda maxkamadda inuu geeyey madaxweyne xasan sheekh madaxweyne farmaajona ku mintiday inaan laga soo celin taariikhdaana xusi doonta qof walba wuxuu qabtay marka guushayaan la kala sheegana guul soomaaliyeed ha laga dhigo warra kaloo muddo la eeday jiray oo cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ka mid yihiin xeel ilaaliyaha guud ee qaranku hadda ka hor waxa uu yidhi is-afgaradkaas haddaysan samayn lahayn baddeenna lama arkeen marka iyaga naftarkooda in eedda laga dhaafaa ila fiican war go'aanka maxkamadda hadduu soomaaliya guul u noqdo waxaa kaloo laftirkooda ammaan leh baarlamaankii 8aad